وصباحا كوا عسينا كوا مركي كل عسير مركي مخلكي عملها بحا waxa uu haystay aabba ka fikira noloshiisa ku dhiirageliya waxbarasho iyo inuu dhisto mustaqbalkiisa laakiin rajadaas waxay soo ilaatay maalin sabti ah 14 Oktoobar 2017 markii Mahad Maxamed aabihiis uu ka mid noqday muwaadiniintii lagu waayay weerarkii argagixisada al-shabaab ay ka fuliyeen isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho aabe qarax sooba ku dhacay meesha biyo gaday qaraxii la kunaan adeeg soo qaaday biyamki biyamki uga gal lixsa ma soo taayay adeeg soo qaaday awarta u keenay markii oo wax joo suuq beerta maqlay qaraxa markaas ay توم برعملها نولو دياي أبي ماشى التكنيك أبا قرحة وجري علينا si uu u buuxiyo kaalintii aabihiis Maxamed oo isgoyska Soobe ku iibin jiray cabitaan ama sharaab ayuu qaatay mas'uuliyad weyn oo ah inuu dabaro nolosha walaalihiis iyo hooyadiis oo markii hore ku tiirsanaa aaba Maxamed abos abo wana gal oo qisbiyanti gal intii oo walaale oo biilo abarti oo biilo aw gal aabe wixii qaw jirintii qabto aw gal markaas asayna gal bos aabe ana ku jiraatay maadaama aan la helin meydka aabihiis waxa uu waqtiyo dhowr ah niyeysan jiray mar uun in la helo aabihiis balse ugu dambeyn Mahad waxa uu aaminay geerida aabihiis aabaaska cafi aabe intii dhinti wili ma aaminsanata adama ku umaaday misdooyata ilbaak ma soo galay asdooya aabaaska cafi nin oo meedkiis balahayn oo meelka ligeenin ma la cafi karaan inta ka soo galaa bamar ogtahay maru meesi kare aabe ilaad wala sana ama dhinti mooy ana niide waxa uu qaadsana intii dhinti aniide jirto marka soo galay qaraxsan Mahad waxa uu mar waliba soo gocdaa laxawgii iyo daryeelkii uu ka heli jiray Allah u naxariistay aabihiis Maxamed oo ku bogaadin jiray in nolosha uu heer sare ka gaaro wajaclaa taabi wanu shaqeeyay guri dhan biilkiisan waa ijaarkan ay diiwaan hada dacstan dina soo go iska tuuran leewan ugu gaday laakiin sadaan duruufan naqlad aabe sana ilaa dugsi iyo salaada duko saddexda waqti ka fikirnay ani ala israacana taa duke tinsaajita israacana saddexda waqti salaasa waxa duko dugsiya u noqo saddexda waqti dugsiya u noqo soo dhiyo ma wax un jiif hergal wax aqoonay alida هذا آمين يا ساسي داي عاب كلنت ما كوسنا كرو ما يدي وإليك جلال Mahad Maxamed si kastoo ay nolosha ugu adkaatay waxa uu leeyahay ham weyn oo mar uun uu rajeynayo inuu gaaro aan madax markii naqal maartay oo miirisha jira oo awoon naqad aburto dhan oo xamaal jirto maartay intii oo qabto oo dugsiga oo raashin oo siiyo yaa raashin markiisii oo cuntada oo siiyo minka geey abarta hadii bilis bur waxaas soo dhiyo guru u gado guriyaas geey jijiyo oo Allah waxaas u gado sarfiyaal waxaas u gado oo siiyo adii kuwa kale macarit adii raarina wax siiyo saasantii ma khalaaro madaxnimo intiyaas ma khalaaro kuwa madaxyaasha macarit
aan boontiisaas ka naqadaas muxiidiin macalin cabdullaahi SNTV muqdisho